شغلة waxaan bilownay horta sanadka hore shanaad 20-keedii markaan bilaabay shaqada waxaan ku bilownay wadanka dayac badan baa ka jiray waxa jirtay wadada tan wadaagsan dhaho tan iyo garaab ilaa jariiban ilaa meesha la kalkaayo wax la maray way jiray wax la dhagax ciid waxyaalo loo maaqliyaade godad waxyaalo fara badan noocaas dadku iska caban jireen muddo fara badan baa meesha wax laga qaban si dawladda Soomaaliya u dhacday iyo intii ka dambeysay labada meesha wixii ka jira waxa ahaayeen dhagaxaas tirada badan oo gaadiidku ka cabanayo dadka danyartaas ka cabanayaan inta ka baadi rablan yaraa waxaan isku helnay fakar waxaan qaadanaa inaan wixii meesha ka qaban karo oo marka tabartayda taa ka qaban shaqayso wadada wadaagsin oo wax badan oo baasan ay ka jiraan sida uga hadlay walaalkay ninkii igu horeeyay Cabdullaahi Maxamed Jaawa gudoomiyaha aan ku xigeen baanahay waxa kale oo Bootaan Bashiir Bootaan la yiraahdo kala dhalinyara saddexdaan waxaan ku tashanay inaan wadada wax ka qabanno oo tawarracaad ahaan wax uga qabanno waxaan wax ku bilownay gacanta waxaan wax uga qabanay Balbusle ilaa Boogi inta u dhaxaysa 8 kiiloomitir gacanta wax uga qabanay dabeedna wax qabadkaas wuxuu dhalay in qalabta lagu caawiyaan qalabka hadda meesha yaala kamida in qayb waan soo kareysanay qayb dad dhalinyaro baa noo kareeyay qaybna tabarcaad ahaan baan u helnay waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dadka wadada mara inay arkaan wax qabadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحين نشوفنا قاعنا فلة أما دبر شيل المكرة هل كانوا قوبتا يكسروا الشغلة حاجة كنت ودده وداكسين وحنا بوقشة ونمد لأن يرادا هل كان كشغين يسيو أي كمدي هي المقعود اللي راح نحتال والشغلة وديه هذا ورئيس قاد مركورة عرفتين aniga iyo rag kale oo hadda meesha maraya oo wax garadka iyo ganacsatada iyo qurba joogta isugu jiraan waxaan ugu nimid inaan dhiiri gelino rag hawshaan haya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaan u mahadcelinayaa ugu horeyn bahda saxaafadda fursadda ay ii siiyeen in aan halkan oo aan booqasho aan ku imid aniga oo kamid ah jaaliyadaha dibadda in aan halkan booqasho ku imaado dhalinyartan oo wax lagu naaloon karo bilaabay
dalkooda u shaqaynaya waa arrin aad iyo aad loogu farxo waxaanan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa dhammaan cid kasta oo codkayga maqlaysa meel kasta oo ay joogaan in ay jiri karaan dad dhalinyaro ah oo maskaxdoodii iyo aqoontooda iyo maalkooda ku bixiyay horumarka dalkooda